عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليقة halkan waxaa idinkula wadaagayaa xawaado ee fiiraado cashar runtii aad qiimo u leh ama aad u qiimo badan runtii aad wax badan ka faa'iideysaan kuna saabsan sida aad Windows 11 oo u shuban lahayd ama u install garaysan lahayd firmware workstation. Windows 11 sidaan ula socono waa Windowskii ugu dambeeyay ay shirkadda Microsoft sii dayso kaasoo runtii kumbuyuutarada dambe hadda soo sameeyay runtii ku imaanayo sida aad u isticmaashay firmware ahaan ama virtual ahaan waa inaad talaabooyinkan soo socda aad qaadaa. Number 1 ama number 2 waa in marka hore uu firmware workstation ku jira kumbuyuutarkaaga ama kugu duuban yahay. Marka labaad ama stepka labaad waa in Windows 11 asagoo ISO ahaan kugu jira kumbuyuutarkaaga. haddii intaas aan waxa weeye isku raacno sida aad u soo dejiso Windows 11 waxaad tagaysaa Microsoft kadibna download page ama linkiga ana hoos idinku soo qoray description-ka YouTube-ka channel-kayga. kadib hadda waxaan bilaabaynaa casharkeena la socod wanaagsan. marka wada faylkaasaan ku dhufanaya marka hore waxaan soo kacshay firmware workstation-ka kadib waxaan dooranayaa file kadib waxaan sii dooranaa new virtual machine dan waxaan dooranayaa wax la yidhahdo table halkaas kadib waxaan leeyahay cajalad DVD ama Windows uma duubna waxaan haystaa .iso browse baan leeyahay meeshuu ii yaalaan dooranayaa marka anigu wuxuu ii yaalaa desktopka wuxuu kasii yaalaa waa kana waa select garaynayaa kadib waxaan leeyahay iisoo qaad waad aragtay kadib waxaan leeyahay next waxaan dooranayaa Windowska uu yahay operating-ka uu yahay Windows 11 Windows way Microsoft Windows way kadib waxaan sii dooranayaa Windowska uu ka yahay then waxa ugu dhawaada Windows 10 next waan sii leeyahay magac waan u bixinayaa waxaan leeyahay Windows 11 64-bit leeyahay yes baan leeyahay. halkan waxaad ku qoraysaa diskiga kulay kumbuyuutarada ama qofku kumbuyuutarku isticmaalay ku xiran tahay diskigiisa intuu leeyahay intaad u ogolaanaysid in Windowskan aad ku shubanaysid uu ku rangareysmayo automatic ahaan 60 GB uu ku soo qaaday. marka aniga diskiga kumbuyuutarka ku xiran space aad u fiican baan haystaa yes baan leeyahay intaas ay ugu filan. adigu waad ka yareysan kartaa 20 baad ka dhigan kartaa 50 baad ka dhigan kartaa 30 baad ka dhigan kartaa ama ka badanba. split baan leeyahay option-ka labaad baan dooranaya next waan sii leeyahay kadib waxaan sii tegayaa customize waxaan rabaa meeshaan waxaa weeye inaan wax ka bedelo markooda waxaan ku dhufanayaa RAM-ka yes 2 GB waan ka rabaa in iga dhigo process-ka laba oo inuu yahay sax network-ga absolutely waan waxa weeye automatic ahaan asaga ii doorayba sida aan rabay. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu kuu dooro network-ga customer care kadib waxaad ka dhigaysaa nadkan oo runtii aad u fiican kadib finish baad leedahay wuu ku duubayaa marka automatically wuu ku duubay. kadib waxaa noo haray install-kii caadiga ahaa oo waxa weeye Windowska power on baan leeyahay this machine kiigaasaan taabanaya press any key markuu ku yiraahdo yes baan leedahay dib waxaan sugnaaba waxa weeye hagitaankii Microsoft ama installation stepskii Microsoft asii doonto. halkan markaad soo gaartid waxaa leedahay next install now halkan waxaa ku weydiinayaa maxay ahayd waxa la yidhaha activation-kiiga waxaa laga dhawaan gelinayaa dhib malahan. waxaad dooranaysaa marka operating system-ka
noocaad rabtid. waxaa rabtaa Windows 11 home, waxaa rabtaa education, noocaad rabtid adiga adaa dooranaya. Windows 11 home ka automatic noo soo qabtaan dooranayna. accept baan leeyahay. then install baan dooranayaa. then hadiskii automatic waan sii dooranayaa. waa kaas waa hadiskii haddaay firmware-ka uu noo sheegay 60 GB ma rabtaa inaad ku isticmaashaan Windowskan. firmware-ka aad ku install garanaysaan. next baan sii leeyahay. marka waxaan ku copy garanayaa ama ku install garanayaa Windowskii faylashiisa. markuu dhameeyo baan kusoo laabanaynaa insha Allah. hadda waxaa dhiman inuu waxa weeye faylasha diyaariya oo 96 uu maraya boqolkiiba. waxaa dhiman 4 aan yara sugna. asagaan u daynaynaa inuu restart isku sameeyo. halkaan markaad joogtid waxa uma sameynaysid, asagaad sugaysaa. Windowska ayaa shaqadiisa qabsanaya oo finalize garaynaya installationka. waa inaad dulqaad u yeelataa. processka installationka intuu socdo Windowska dhowr jeer buu computerka restart ama isdiminaya amar la-aan adiga. marka waa inaad u dulqaadataa sugtaa ilaa aad waxa weeye uu ku leeyahay isticmaal computerkaaga cusub ama Windowskaaga cusub. waxaan soo gaarnay dabiiqadii ama gabagabadii installationka ama hagitaankii waxa weeye procedureka ama processka Windowska uu nasiinaya ama uu sameynayay. marka taas wait a moment. Wow, what a nice window is. MashaAllah. Okay, halkan waxa weeye waxaan soo gaarnay gabagabadii ugu dambeysay. waxa weeye install garaynta Windows 11 oo kaasoo aan ku install garaynay firmware-ka. Press Windows plus U. waxaad dooranaysaa waxa regionka aad joogtid waad dooranaysaa. waxaad dooranaysaa cable-ka qaabku noqonaya. yes baa sii leedahay. kadib skip baa leedahay. waxaas adhowaad markaad Windowska aad complete ku shubatid baad nooca cable-daada iyo language-kaaga waxaa oo dhan aad start garaysanaysaa. skip baa iska leedahay. then hadda wax qado kuma xirna as you see.
install. Let us connect to the wireless. aan ku xirna waxa weeye maxay wirelesska si aan u dhaafno waxa weeye stepkan. Yes, automatic aan soo qabanaya. Then next waa leedahay update miyaa u baahan tahay asaa update garanaya haddii updates available uu yahay. Update cusub oo Windows 11 hadduu available yahay asaa ku sheegayo. runtii Windows 11 waa Windows aad fudud. runtii waxyaalo badan bay kasoo bedeleen. applicationo badan oo si external loogu soo shuban jiray ee Windowska bay kusoo direen. marka masha Allah aad buu qurux badan yahay sidaan dareemayo. okay, wuxuuna keenay shaashadan. runtii shaashadan waa waxa weeye waxa weeye kuu sheegaysaa inaad gashatid hal email, ama haddaad leedahay Windows email ama Outlook ama Hotmail, kaasoo runtii kuu sahlay inaad isticmaasho applicationadan kala duwan ee shirkadda Microsoft iska leedahay. waxaa kamid ah Office-kii, waxaa kamid ah maxay Recruit-kii, waxaa kamid ah waxa la yiraahdo maxay Microsoft Teams-kii oo Skype-kii oo kala ah oo aad waxa weeye meeting u gali kartid. waxaa kamid ah Outlook-kii oo emailada wixii dhan. waxaa kamid ah Microsoft Explorer 11, Xbox-kii baa kamid ah. marka emailka hala gashanaysaa, then password-kaagii waad maxay sii gelinaysaa automatically markuu kugu xiriyo computerkaaga. marka hadda anagu soo hadaan lahayn Microsoft account ama Outlook, let us create one. so emailkaaga samaysanaysaa, ama haddaad hore u leedahay waxaa leedahay login. password baa u samaysanaysaa. gelinaysaa magaca. waddankaad dooranaysaa marka aad joogtid. halkan waxaad gelinaysaa date-ka aad dhalatay. telefoonkaad gelinaysaa. marka hadda anigu waxaan gelinay email Microsoft aan hore u lahayn. okay, waxaad samaysanaysaa marka password computerka aad kusoo gelinay sida caadiga ahayd. haddaad Windows 7, 8, 10 isticmaalaysay dabcan password kusoo gelaysaa. password aan ku lahaa marka password baa samaysanaysaa. okay, biinkaaga waa inaad ilaawin. show baad leedahay haddaad u baahan tahay inaad aragtid waxaad gelisay. okay, baa sii leedahay.
celiyo markale. Linkan waa inuu 4 xaruuf oo weliba waaweyn yahay. Okay. Hagaag. Linka intuusan garanay oo kusoo laabanayna hadduu ay yiraahdo. Okay, waan kusoo laabanay ugu dhameeyay. Marka wuxuu ku leeyahay Microsoft Global Education-kaaga iyo waxa weeye maxay isticmaasho. Marka hadda uma baahnin waa leenahay. Sidoo kale wuxuu yidhi haddii uu kaalumo device-ka ku isticmaalaysa Windows-ka ama Microsoft hadda uma baahnin waa leenahay. Tani waa optional. Waxyaalaha haddii crash u dhaco kale Windows-ka usage-kaaga noo dir. Marka option baa yaala. Midka hore wuxuu leeyahay waxay website isticmaasha browser-ka application-dada waxaasi noo dir kana require kaliya waxyaalaha crash dhaco oo kale hadda isticmaalka Windows-ka dhowr jeer crash oo kale si automatically oo u diro xogtaas hadhowna hadhow waxa weeye wax ka badan base kugu soo diraa maaragtay support. Hadda waan leenahay. Hadda waa baahin may ma u baahna hadda waxa weeye application-ada Windows-ka uu wato inay waxa weeye xaysiima waxa weeye markaan u baahno furnay xaysiin waxaas ay ku adeegsan ID-geena waan leenahay. So-aalkan wuxuu leeyahay waxa weeye wax ka bedel ku samaysaan waxyaalaha xiiseynaysid entertainment oo kale geedaha dawladda ugu soo diro oo kale school creative waxaas oo dhan waxay u baahan tahay akhrisan kartaa laakiin hadda anaga uma baahnin iska daalanahay. waxaa kaloo rabaa inaan la socodsiiyo markaad Windows-ka dhamaysid waxaad computer-ka u soo geshid ama filmkaaga dabcan markaasaad a lot of waxa weeye custom ku samayn kartaa wax kasta u baahan tahay wax ka bedeli kartaa waxa weeye application aad xiiseynaysa kusoo darsan kartaa. Choice badan baad leedahay. Marka wuxuu ku yidhi OneDrive miyaan waxay ahayd aan kuu save garaynaa mise computer-ka waan leenahay. Okay, office free ah u baahan tahay office 365 maya hadda uma baahnin. Haddaad u baahan tahay for free bal marka hore waxa weeye ku codsanaysaa kadibna waxa weeye dib aad ugu oranaysaa kii dib waxa weeye aad u garanaysaa haddaad office-ka hore u galatay office 365 halkaas u faraysaa kii galaysaa. Hadda laakiin anagu uma baahnin waan ka soo waa maasaf waan leenahay. Kan ku dhamaado kusoo laabanayna insha Allah.
inaan waxa way ku install gareyno Windows 11 firmware-ka. marka waxaa noo haray waxa way hadda inuu desktop-ka dhigiyo. soo fadlan ha ka saarin waxa weeye computerkaaga hypercharger-ka runtii ama waxa way baterigiisa meel fiican marayaan dadka hana damin fadlan inta processka installation-ka socdo. Okay, wuxuuna keenay shaashadeena cusbeed Windows 11. runtiisa aad ujeedaan waxa weeye Windows 11 fantastic Windows way ku farayareysatay shirkadda Microsoft. marka Xcode meeshan ku jiraan kusoo faraysa waxaad u baahan tahay oo dhan calculator-kii waxa weeye Explorer-kii wax oo dhan maaragtay halkaan ugu jiraan. waa ka meeshii awlaad Windows 10 ama Windows 7 ama 8 xagga ka iska barat markaad u baahan tahay inaad control panel ama setting-kii waxaas application-ada dhex gashay automatic xaggaan lagu soo dhigayba